Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaantiin soo dhawaada mar kale. Halkan waxaan rabnaa inaan kusoo gabagabayno muuqaalkiini ugu dambeeyey ee qaybteena advansiga. Muuqaalkan wax cusub uguma hadli doono, keliya waxaan uga hadli doonaa toddobadii qodob aan kuusoo sheegay, sida la iskula isticmaalo iyo sida suuqa looga raadiyo iyo sida suuqa fursad looga helo oo entry looga galo. Waxaan ku rajeynayaa inaad mar haddii aad halkan soo gaartay aad nala socotay ilaa iyo muuqaalkii koowaad ilaa iyo muuqaalkan in aad tahay qof wax badan fahmay. Waxaa markaan ku haray waa inaad intaan ku celcelisaa waqti gelisaa, sidoo kalena aad account furataa, tartiibtaada aayartaada u shaqaystaa. Intaan haddii aad baratid aad ku celcelisid waqti gelisid, intaan ayaa kaa badan. Anigu intaan ayaan isticmaalaa, suuqan intaan ayaan ku taxliiliyaa, ku farsameeyaa. Maxaa la yiraahdaa, waxyaabo badan ay guulo badan ay gaarsiiyeen. Marka adina haddii aad rabto sidoo kale intaan ku celceli waqti fiican geli, ha u ordin rules kale iyo wax kale oo qof kale kuu sheegay. Balse markii tan aad waqti gelisid 3 bil 4 bil 5 bil 6 bil ha kugu qaadato, kadib haddii markaas aad wax fahmi weyday la garay, laakiin intii aad maskaxdaada ay furan tahay waqti geli, si fiican uga faa'iideyso, ku celceli marar badan. Insha Allah waxaan ku rajeyn doonaa mustaqbal fiican inaad waxaan aad si fiican u fahantid. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halkaan hadda casharkeena kasoo gudagalo. Trade-ka markii aan dhisanayno ruleska iyo sharciga aan ku fiirino iyo maxaa la yiraahdaa sida uu aan trade-keena u galno. Qoraalka halka haddii aynu soo qaadano dhammaan waxaan iri trade walba oo aan galayno waxaanu ka hubinaa qodobadii aan soo qaadanay oo ahaa 7 qodob ee isku xirnaa. 7 qodob ayaan kuusoo sharxay midba gaarkiisa, si gooni aan kuusoo sheegay. 7daas ayaan suuqa uga faa'iideysanaa ayagoo wada jiro oo wada xiriir. 7daas qodob haddaan si guud ku dul xasuusiyo anoo dul maraya. Kow waa in jihada suuqa lasoo xaqiijiyaa, suuqu inuu abtiran yahay iyo inuu doontaran yahay. Sida suuqu inuu abtiran yahay iyo doontaran yahay lagu xaqiijiyana video gaar ah ayaan kugu soo sheegay. Sidoo kale inaad postage-da suuqa aad soo heshaa oo loo yaqaano institutional candle, sidoo kale loo yaqaano AC candle. Maxaa la yiraahdaa, waa in asagana soo heshaa. Asagana casharkii labaad ayuu ahaa, waa ka soo haray sida loo helo iyo ruleskiisa. Sidoo kale casharkeena saddexaad waxaan kusoo qaadanay liquidity. Qodobkeena saddexaad marka wuxuu noqonayaa asagana liquidity. Qodobkeena afraad wuxuu noqonayaa mitigation. Mitigation waa ka hadalnay. Sidoo kale qodobkeena shanaad wuxuu noqonayaa imbalance. Imbalance isaguna waa qodobkeena shanaad. Qodobkeena lixaad wuxuu noqonayaa demand mise supply, meesha suuqa buy looga galo iyo meesha suuqa sell looga galo. Qodobkeena toddobaadna wuxuu noqonayaa counter trend iyo entry. Haddii aan farshaxanka halka aan kuusoo waray aan hal mar isla fiirino, suuqa waxaa ku yiri ku xaqiiji in suuqa uu yahay maxaa la yiraahdaa uptrend iyo in kale. Waana suuqa hesha higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Marka dambe aad suuqa fursad ka raadinaysid inaad soo heshaa AC candle. AC candle sharciyadiisa waa ku sharaxan karo inay big move ku xigaan oo dhaqaaqyo fiican. Waxaa ku sidoo kale in zone-ki ka soo horeeyo kala la jibiyaa. Kadib suuqa waxaa ku yiri handala u sameystaa waxa loo yaqaano isleeg hoose oo suuqa buyga u sameysto oo loo yaqaano liquidity bottom ah. Hoose waa inuu sameysto liquidity bottom kaas marka uu halkan ka abuurto uu sameysto. Inta waxaa ku waa inuu dhaqaaq mitigation loo yaqaano oo soo bilowdo oo halkan ku keeno suuqa. Dhaqaaqaas ayaa waxaa loo yaqaanaa maxaa la yiraahdaa mitigation. Mitigation-kaada marka waxaan ku yiri uu dhaco oo halkan imaado, suuqa hore ha ka gelin, sug ilaa aad aragtid suuqa inuu meeshan kor uga kacay oo uu jibiyey opposite-kii kasii horeeyay oo mitigation-ku markii hore kasoo bilowday. Yacni waa in meeshan u koreysay korkii hore, korkaan waa in la jibiyaa. Markaas ayuu mitigation-kaada waa meesha kasoo bilowday Soomaa. Meeshaas waa in dhaqaaqan uu ka dul maraa, kadib waa inuu soo noqdaa baan ku yiri. Kadib waxaa ku yiri candle-ka ugu dambeeyay ee mitigation-kaada korkiisa iyo hoostiisa calaamadeyso. Korkiisa hoostiisa marka calaamadeysato intaas u dhaxaysa markii lagu soo noqdo suuqa waa gali kartaa, waana ka faa'iideysan kartaa. Kadib calaamadaada buyga soo qaado, sidaas u dhigo. Easy ayadoo practical-na waa isla arki doonaa. Sidoo kale suuqa sell-kana asagana waxaan ku yiri jihada suuqa soo xaqiiji lower low, lower high,
lower low, lower high, lower low, and then marka lower low soo heshid suuqu waxaan ku yiri waa inaad candlekii loo yaqaano boostejada suuqa waa inaad raadisaa. candleka sharcigiisa waxaa kamid in xoog looga daataa waan ku yiri. sidoo kale waxaan ku yiri waa in opposite zone-kan kasoo horeeyay la jibiyaa waan ku yiri. markii ay dhacdo waa in uu suuqu samaystaa liquidity top ah oo kore halkaan iyo halkaan oo laba jeer taabsan. kadib waxaan ku yiri waa inuu suuqu uu mitigation ku sameeyaa oo suuqu meeshaan candlekaadi ahaa ku beegna lagu taga. candlekaada markii meesha ku beegan lagu tago waxaan ku yiri suuq ilaa laga soo daato oo la jibiyo waxaa la yiraahdaa meeshii uu ka bilowday mitigationkaada oo halkaan ahayd. markii aad aragtid in ugu dambeyn meeshii uu kasoo bilowday mitigationkaada sidaan oo kale loo jibiyey waxaa sugtaa in suuq uu ku noqdaan ku yiri candlekii u dambeeyay oo ahaa mitigationka meesha candlekiisa u dambeeyay korkiisa iyo hoostiisa waxaan ku yiri calaamadan saaro. markaa saas u saaratay kadib meeshaan lagu yimaado lagu soo noqday intaas u dhaxaysa mar hadduu suuqu soo galo hore ayaad ka geli kartaa fursadaadana sidaas ayaa uga faa'iideysan kartaa. suuqa hadeertaan aan bal ka fiirino isagoo maxaa la yiraahdaa real chartigana haddaanu ka raadino halkaan waxaa uga jeednaa IC candle. halkaan waxaa uga jeednaa inuu ku jiro waxaa loo yaqaano IC candlekeena. IC candlekeena markay aana looxa ku yiri suuq waa inaa fiirisaa in big move ku xigay. yes waa ku xigay waa kana zoonkii kaasoo horeeyay ma la jibiyey. yes of course waa la jibiyey ilaa condom baa la jibiyey. markaa aragtid in kaas la jibiyey waxaan ku yiri suuq sug markuu soo noqonayo inuu uu samaystay waxii loo yaqaanay liquidity bottom. yes waa kana waxaa ujeeda halkaan inuu ku samaystay liquidity bottom. liquiditygaada waxaan ku yiri markii uu samaysmay suuq waa in mitigation lagu sameeya oo halkaan lagu yimaado ma lagu yimid. yes waa la yimid. mar halkaas haddii la yimid waxaan ku yiri waa inaad sidoo kale suuqa aad iska gelinin oo uu dhaqaaq uu kor u kaca oo mitigationkaada meeshu ka bilowday la jibiyaa. aan bal fiirino waxaa ujeedaa in dhaqaaqan kor u kacay oo mitigationkaadii meesha uu kasoo bilowday oo halkaan ku aheyd uu jibiyey. mar halaali markuu halkaan jibiyey waxaan ku yiri candlekaadi u dambeeyay korkiisa iyo hoostiisa ee mitigationka calaamadso. korkiisa waa halkaas hoostiisana waa taasa. yes waxaa ujeedaa markaas suuqu inuu meesha yimid afka hore u saaray kadibna uu suuqu sidaas uu ku kacay uu baa ku aaday. fursadaada koowaad sidaas ayaad uga faa'iideysan kartaa. haddii aynu kusii soconno oo fursado kale aan raadino mar kale waa kana halkaan waxay noqonaysaa IC candlekaadii waxay noqonaysaa halkaan IC candlekaadii. IC candlekaadi markaa hesho waxaan ku yiri waa inaad raadisaa maxaa loo yaqaano waa in suuqu uu kor uu ka kacaa horta si fiican uu looga dhaqaaqay ma dhacday. yes kadib waxaan ku yiri zoonka kasoo horeeyay ma la jibiyey. yes waa kana ma jibiyey. markaa suuq markuu soo noqonayo liquidity meel aan ku abuuray haddii aynu ka raadino yes waa samaysay liquidityna waxaa ujeednaa inuu halkaan liquidity yahay. liquiditygaaga dhaqaaqii mitigationka makuu yimid oo liquiditygaaga kasoo bilowday. yes waa kana asagana waa soo bilowday waa kana halkaan ku dhamaaday. kadib liquiditygaada ma la jibiyey ma lagu dulmaray si xawliya. yes korkaasuu xitaa tagay. liquiditygaada meesha kasoo bilowday calaamad ayaa saaran karta si ay u xaqiiqsato waqtaas. kadib waxaan ku yiri candlekan korkiisa iyo hoostiisa calaamadso. korkiisa iyo hoostiisa sidaas u calaamadso. kadib markaa sidaas u calaameysatid calaamadaada baaga soo qaada meesha candleka afkiisa ka bilowda waa meesha suuqu markuu yimaado intrigaada
uu kaaga bilaabay. intaas inaa isla fahnay ayaan rajeynaya. oo dhan sidaas ayaad suuqa uga faa'iideysan kartaa. markale aan sii raadino, halkan waxaa uga jeedaa andare inuu AC candlekaadii uu ku jiro. maanta dhan saas ayaad suuqa uga baari kartaa. kadib waxaa ku yidhi suuqan xoog loo jabiyey, fiir looga dhaqaaqay. yes, waa looga dhaqaaqay. kasoo horjeedkaadii ma la jabiyey? yes, waa la jabiyey. liquidity ma samaystay suuq markuu soo noqonayay? yes, waa samaystay. liquidity oo bottom waa samaystay. liquidity-gaada dhaqaaqi kasoo bilowday ma laga soo hoos maray? ma yimid maxaa la yidhahdaa AC candlekaada mise boostaajadii? yes, waa yimid. kadib asagii ma lasii jabiyey? ma laga dhaqaaqay? yes. ugu dambeyn markii halkan suuqaadu uu kusoo noqdo, inkastuusa imaanin, waxay kuu noqonaysaa halkan intriga oo meesha aad suuqa ka raacayso. ayadana waa isla fahnay. suuqa oo maxaa la yidhahdaa seel ahna aan bal fiirino. suuqa seel ahna aan fiirino. halkan waxaa ku jiro AC candlekaadi. halkan waxaa ku jiro AC candlekaadi. haddana suuq waa ujeedaa inuu si xawliya meeshan uga daatay. suuq markuu sidaas uga daatay, opposite zone markaadi kaasoo horeeyay ujeedaa suuq xoog way uga daatay. kanoo kale uu jabiyey. kanoo kale markuu suuq uu jabiyey, waxaa ku yidhi waxaa ka raadaysaa liquidity kore. yes, liquidity kore waa ka haysaa. ayadana waa samaystay liquidity top ah. kadib waxaa ku yidhi liquidity-gaada in laga soo imaado oo dhimaankaada mise AC candlekaada la imaado ka raadi. waa kana, waa la yimid. markay la yimid dhimaankaada, waxaad fiirisaa in dhaqaaq isagii lasii jabiyey. yes, waa laga soo hoos maray. waa kana hoostii uu kasoo bilowday mitigationkaada. waa kana. markaas haddana waxaan ku yidhi waxaa calaamadsataa mitigationka candlekii u dambeeyey korkiisa iyo hoostiisa. kan weliba si aada qurux badan ayuu usoo laabtay. kadib calaamadaada seelka soo qaado, halkaan dhigo. maanta dhan sidaas ayaad suuqa uga maxaa la yidhahda raadin kartaa ruliskii aan kuusoo sheegay dhammaantood. waxaan kuu rajeynayaa inuu muuqaalkan uu kaa caawin doono inaad wixii iyadoo la isla isticmaalayo aada aragtid. haddii aynu maxaa la yidhaha mar kale aan sii raadino, tusaale mar kale ayaan heli karnaa. waxaa ujeedaa halkan inuu yahay halkan waxaa ujeedaa inuu yahay candlekaadii AC candlekaadina halkan ka heshid. kadib waxaa ku yidhi suuqu in xoog uga daatay. fiiri, waxaa ujeedaa inuu suuqu sidaan uu uga daatay. waxaa ku yidhi opposite zonekii fiiri ma la jabiyey? yes, kan ayaa la jabiyey, kan ayaa la jabiyey, kuwa yararkaa dhan. kadib liquidity kore ka fiiri. liquidity kore. yes, waa kana liquidity kore oo toba. kadib waxaa ku yidhi mitigation inuu dhacay. fiiri, yes, waa kan waa dhacay. kadib waxaa ku yidhi mitigationkaada in laga sii hoos maro oo dhaqaaq xoolihii jabiyo. fiiri, dhaqaaqan ayaa jabiyey oo sidaas ayaad u calaamsan kartaa si aad u xasuusnaato in la jabiyey. kadib korkiisa iyo hoostiisa candleka u dambeeya mitigationka calaamadso. kadib marka lagu soo noqdo candlekaas, suuqaada wuxuu kuu noqonaya meel aad fursad uga geli karto. intaas
ayaan mar walba anu suuqa ka raadiyaa, intaas ayaana isaacideysa. insha allah adigana waxaan ku rajeynayaa inaad si tartiib u isticmaasho adigoo midba gaarkiisa u fahansan oo videoyaasha aan midka uga hadlay intaad daawatid kadib isla isticmaal. insha allah waxaan ku rajeynayaa guul iyo horumar. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.